السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود الكو سو دواada wararka ciyaaraha bulsha sport waa aniga Xasan Cumar Xuseen oo qodobadani ayana waxa kamid ah Arsenal ayaa soo bandhigtay qiimaha ay ku iibin karto Alexander Lacazette Newcastle ayaa dadaal dheeraad ugu jirta Joe Willock Man United ayaa doonaysa saxiixa labaad daafaca dhexe Jules Kounde intaas waxay qodobadii wararka haadan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Arsenal ayaa soo bandhigtay qiimaha ay ku iibin karto Alexander Lacazette qodobkaasi waxaynu haysamono Cismaan Arsenal ayaa miiska soo saartay weeraryahanka reference Lacazette maadaama ay raadinayaan inay u adeegsadaan lacagaha ay ku iibsadaan Tammy Abraham Arsenal ayaa shaaca ka qaaday qiimaha ay ku iibinayso Lacazette iyadoo Gunners lagu soo waramayo inay doonayso inay ku fasaxdo lacag dhan 15 milyan oo gani wargeyska The Sun ayaa sheegaysa in Arsenal ay doonayso inay ku iibso Lacazette lacag gaaraysa 15 milyan Mikel Arteta maamulkiisa ayaa raadinaya inay iska diraan dhowr ciyaartoy xagaagan maadaama ay dib u dhiska bilowday kooxda kadib xilli ciyaareedkii adag oo ay ku soo qaateen Premier League iyagoo ku dhameystay meelo ka baxsan meelaha Yurub markii ugu horeysay 25 sano Newcastle ayaa dadaal dheeraad ugu jirta xidiga Joe Willock qodobkaasi waxaynu haysamono Cismaan Newcastle United ayaa isha ku haysa inay Joe Willock kala soo saxiixato Arsenal si joogto ah kadib heshiis ama oo ay ku soo qaateen laakiin waxay haatan ka fiirsanayaan bartilmaameedyo kale Willock ayaa dhaliyay 8 gool 11 kulan oo uu ku soo bilaabay kooxda Magpies qaybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore laakiin ma aysan awoodin inay heshiis la galaan Gunners warbixin ayaa soo saartay The Athletic ayaa haatan sheegaysa in ciyaaryahanka qadka dhexe ee Chelsea Ross Barkley kaasoo xilli ciyaareedkii hore ama ku qaatay Aston Villa uu yahay bartilmaameed macquul ah 27 jirkan ayaa noqon lahaa bedelka ugu haboon ee lagu dari karo Willock wuxuu noqon lahaa heshiis fudud oo lagu gorgortamo Man United ayaa doonaysa saxiixa labaad ee daafaca dhexe Jules Kounde qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wali baaxsanayso Jules Kounde xitaa haddii ay la soo wareegaan Rafael Varane Red Devils ayaa ku jirta wada hadal ay ku doonayso inay Rafael uga soo qaadato Real Madrid laakiin xitaa haddii xidiga reer France ay u dhameystirto ku biiritaankiisa ay waxay dhameystiri karaan markii labaad ee La Liga sida laga soo xigtay Daily Mail u dhaqaaqista Kounde ayaa wali ku jirta kaararkiisa si ay u xoojiso difaaceeda kooxda Arsenal ayaa dalab dheeraad u gudbinaysa sida uu heli lahayd Dani Zakaria qodobkaasi waxay noo eegaysaa Muno Cismaan bartilmaameedka kooxda Arsenal Denis Zakaria ayaa siiya kooxda doonaya kooxda kadib markii uu xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago kooxda haatan ee Borussia xagaagan 24 jirkan ayaa si aad ah loogu qiimeeyay Bundesliga waxaana qandaraaskiisa ka harsan kaliya hal sano Denis waxaan isku dayeynaa inaan kordhino qandaraaskiisa tan iyo bishii October ayuu yiri agaasimaha sportska Maxi sida ay qortay go'aal Denis iyo maamulkiisa waxay si cad ah ugu sheegeen in ay doorbidayaan xagaagan in la iibiyo warbixinta Football London ayaa haatan siiyay madaxa Arsenal Edu Light inuu ku soo wareegay ciyaaryahanka heerka caalami ee Switzerland tababaraha Liverpool ayaa joojiyay inuu sameeyo saxiixyo cusub qodobkaasi waxay noo eegay Cabdirasaaq Cabdi tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay inuusan awoodin inuu qaato saxiixyo cusub ee ciyaartooy wargeyska Liverpool ayaa sheegaya inuusan Klopp awood u lahayn inuu diiwaangeliyo ciyaartooy oo dhalan wadanka Liverpool ilaa uu ka fasaxo qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxdiisa Reds ayaa haatan wadar dhan 17 ciyaartooy oo aan u dhalan wadankooda kadib markii ay la soo wareegeen Ibrahim Konaté oo ka yimid RB Leipzig iyo soo laabashada Tokomi oo ka soo laabtay amaahdii uu ku joogay Southampton tani waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay gaartay tiradii ugu badneed ee ogol yihiin Premier League iyo UEFA Champions League intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha bulsha sport waa aniga Xasan Cumar Xuseen waxaan nigaga tagay sidaas iyo nabadgeliyo